Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Qofkii ugu horreeyey ee qof dila wuxuu ahaa Qaabiil oo dila walaalkii Haabiil, balse daawade kuma ayay ahayd haweenaydii ugu horreysay ee zinaysata. Qisadani waxaynu ku soo qaadan doonaa haweenaydii ugu horreysay ee zinaysatay oo waxay ahayd ina Nebi Aadan. Maxaa ku kallifay inay samayso ficilka? Ugu dambayntiina maxay ku dambaysay? su'aalaha iyo kuwo kaleba waxaynu ugu jawaabi doonaa muuqaalka dhexdiisa ee la socod wanaagsan. haddii aad ka heshay fiidiyowga fadlan like saar gambaleelkana furo si ay kuu soo gaaraan muuqaalada cusub, asxaabtaadana u sheergareey. taasi waxay inoo tahay dhiirigelin aad nagu dhiirigelinayso in aynu sii wadno muuqaalada noocan oo kale ah. hooyadeen Xaawo, Ilaahay ha ka raali noqdee, waxay dhali jirtay sanad kasta wiil iyo gabar mataana ah, balse sanad bay waxay dhashay hal gabar. Gabadhaasi waxay ka mid ahayd ilmo Nebi Aadan calayhi salaam, waxaana la odhan jiray Cunuq bintu Aadan. Cunuq waxay halkii gacan ku lahayd 10 farood, waxaana la sheegaa inay 2 madax lahayd. Markay weynaatay Cunuq waxay noqotay mufsidad dhulka fasaadisa, waxayna ka zinaysatay ilmihii uu dhalay Qaabiil. Cunuq ina Nebi Aadan xumaantii ayay sii wadatay, waxayna si sharci darro ah ku dhashay wiil, waxayna u baxsatay Cawj, waxaana Cawj loogu abtirin jiray hooyadii Cunuq. Cunuq sidoo kale waxay ahayd qofkii ugu horreysay ee sixir adeegsada. Ilaahay subxaanahu wa tacaalaa wuxuu Xaawo iyo Nebi Aadan siiyey erayo iyo magacyo ay iskaga difaaci jireen shayaadiinta. Maalin maalmaha ka mida, Cunuq waxay xadday magacyadii iyo erayadii, waxayna ka xadday Xaawo calayhi salaam iyadoo jiifta, waxayna u adeegsatay sixir ahaan, dhulkana way ku fasahaadisay. Cunuq ina Nebi Aadan waxay baadiyeysay dad badan. Ugu dambayntiina waxaa habaaray Nebi Aadan calayhi salaam, hooyo Xaawana waxay tidhi aamiin. Ilaahay ducadii wuu ka ajiibay Nebi Aadan oo Cunuq iyadoo meel iska socota waxaa ku soo baxay libaax ka weyn maroodiga, meeshii ayuuna ku cunay. qisadani inay run tahay iyo in kale Ilaahay baa og, oo waxaa laga wariyey reer bani Israa'iil. Allaahu aclam.